بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa 14 bisha September 1987 waxaanu joognaa magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer waxaanu la kulannay Cumar Cigaal Cabdi oo kamid ah odayaasha degmada Buuhoodle kana mida dadka aad iyo aad gabayga caanka ugu ah waxaanu Cumar weydiisanaynaa inuu gabayadiisii iyo gabayadii kale ee dadka gabayaaga ee degmadan u dhashay iyo meelo kaleba wixii uu ka xusuusan yahay inuu halkan noogu duubo Cumar waad ku soo dhawaanaysaa waxaan ka rabnaa marka ugu horeysa waxa lagu maqaala 62 meelaha iyo 63 adiga iyo aadan carab in dhowr gabay idin dhex mareen bal gabaygaas sidoo u bilaabmay waan filayaa inay ka horeeyay gabaygii hore Axmed Dirir inuu ahayd yaanan ka garoocan sida sheekadu u bilaabatay iyo gabayadiisii u kala xigeen ayaan ku weydiisanaynaa inaad noo tiriso waayahay Axmed Dirir waa gabiyay wuxuu u gabiyay qoladii uu ka guursaday oo ahayd reer marqaan bayb markaa waa gabiyo wuxuu yiri usha dheer markaan geelayaga uubka soo caayay aan aamino curatay uubka laameeyay arrinkaa isheegaya haddaan uumiyaha baadho oo reere aan soo agmaray aanan ka ilduufin haddaan abirar iyo tuuryar iyo aada gacal muuse dadka u fanaaga haddaan adhijir weydiisto ilaahayga iyo naylahan edeg wadaageene abtirsiinyihiibaa i hoday aadan carabowe waxa ooydaa gabadh aabba leh oo ehlu muuqdaaya agoonnimadu waa waxa cidlada lagu awdalay anigana asalibay doraad igaga iibsheen nin anbaday halkuu aaday waa ula ekoonayda anigoo ordayaan wadada eero goomreeya amarkii ilaahiyo waqtigu waa wax kaa adag ninkaasu gabay caynkaasbuu markaa mariyey markaa aadan carab buu doonaya inuu tinax siiyo aadan caraba markaa isagii isku rogay wuxuu yidhi axmedow ikhyaar iyo ninkii oday la moodayo ama yuu ahaan bee filkii kuba abbaarraaday waa inuu ilaashaa waxaan lagu ammaanayn durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aastay oo eera goobaan ka dhacay arartu kaa jiidhay aartiiga iyo taarku gee ooga iyo ciide ma adeenti iyo raadgad baa aadan carabowdu maaniga ah balayeedhu waa uugta soo geliyey maanaa dabbaad ololiso kula afuufaya guuleedku abidkiisba waa duul asal ahaa ee odhanna mayno waa lagu ambaray reer ilayahane bal inay ijiya raasiin uunku wada doortay waa kaa ugaaskiiba degay ila xilkoodiiya buuri markaa halkaasna anugu ka ficilooday aadan carab baan u gebiyey waxaan idhi axmed inaad bushido aadanow kuguma beegnayne baryay wada dhasheen aabbaha kaadu bu-aysaaye caligarina waa kuugu bogay kuuna baalgeliye beeldaajiyaanse kugu wadiyo boqorka reeraahe bahdilaa inaad tahay warbaa iga kaa baxay inaad xididka kala baarido ayuunbaa kugu bannaanayde adigaan gartiiba baadhin baad bogatay liishaane ninse walaalkii uun boqonta jaray waa berri u jooge weligiinba beeshiina waa beri furaysiine bogsan maayo reer hagarnimay bahisku raaceene buruudkooda wiil qarad leh yaabbi iyo maantaasi bal maxay ka helayaan nin kale baalugelintiisa haddii 100 nin ii kulanto oo laygu boobayo birmashiya haddaan aadan carab buuqasho u doonto alleyla anaa badowa aan biidna garanayn markaasaa aadan carab gabi wuxuu yidhi inkastaan baryaha kuga ogaa baadilka iyo maagga marnaba baarlamaanka isma odhan wuu baxsanayaae bidhikaalayaashaan lahaa hayska bacsada waxaan ahay birgeed sabaldhanka iyo boygu caasiyey bakti uma xalaaloobi karo boqor islaameede geeluba biyaha waa naca ceelka baadiyey balwadaadu waa aadan bay beri ismaageen barbariya sinaan iga wallaad iigu soo bixina beydgaabka waa lagu yaqaan booda dheeride baaruuddu goorta indhaa baalka sare leefto walee inaad biyoy oo dhan afkana badhax ku qoyn waayo buuri markaa gabaygaa intaasaan ka hayaa markaa anigu waa gabiyo waxaan maaha baan ku gabiyaa oo dunidu inay isbedesho oo marba nin taariikhda helo yaan soo bandhigayaa waxaan idhi isticmaar beriyuu dunidan cunay baadna loo guray
barqada isagaan toosin baa buun ku soo dhacay in bandiiradiisii la rogo buugga kuma hayne soomaali baahdaa qabsaday barandhayaashii nimankii bustaankii xabsiga wada biyeynayey balay ministariya bay noqdeen baashe iyo kiine banka waxay ku tamashlaynayaan baylad iyo jiibe in adduunyada boob lagu helunbaa badowdu moodaaye sidii ee bahay wax u baxshaa waa bannaan tahay sayid maxamed waa tuu wax bulay beri dhaxaadkii burhaan buu ku dilay koofil iyo baadhigu waday boqol kama yarayn goobihii laysku baatulay waa tii berbero looga qaxay bad iyo xeebaaye maantii wakhtigu buuxsamunbaa gaal ku baashaday laba uur ka soo wada baxay baa baydi kala roone mid baa 100 hanaad iyo carruur lagu bantuuqaaye mid baan ubadka lagu beerahayn baatirtuu qabe baktina looga yaabaa inuu beeriyaroobane barwaaqa looma waayana khalqigaa laysku barayaaye bishan iyo bishadan adduun way isbedelayaay bilcilkaani qinlebe calaan waa bandiirade balle calala geed loorsado waa bidhaan arag baada gabayga siduu aadan carabaawar ugu haystay oo aan nin baal dhigan karaa beledkaba u joogin ayaa wiilal soo wada baxeen baarashuudiiyo laga baday af soomaali laguna baalbaaliye laga baday af soomaali laguna baalbaaliye waxaan kuu bahal ari ma dayn karo markuu beelahdii hore waxaan kuu banaanaymi markuu baalku kaa qoye biciid dhaawac lagu raadiyo buur galaa tahay berrinkaa istaagtaba anuba kaaga soo bixiya markaasaan gabaya markaasuu haddana isaga gebiye wuxuu yidhi 4 qiblaba liifad baan soo qarxinayaa quwad iyo waxaan xoog lahaa qoorigaan dhigay inkastuu khasaare igu yahay qaada gabaygaagu qabka ku hor orday baa igu wacan qarashgarowgaas in qumbulad miskiin lagu ridana ma aha qaynuune in qumbulad miskiin lagu ridaa ma aha qaynuune kuwa qoronta kuu shiraya kula qaxweynaya ee golaha qaaligu fadhiyo ku qisaasaya ee waxay iyaba ii qireen kugu qahaaraya uma qumi kaaga filan qaatilkaa ba'ane qoorhkaba dhufaanku rusqatalay waa u quriyaaye maandhow misana qima male qooqa shidayaaye awrku u soo qolob dhowday looga wada qoofay goortuu garbaha soo qabtay oo qoon yar kaga jiido khayraami dhuusiyo cabaad qoofalkana gooye adna qaabadaasaa tahay waanad qaranayna goortaan ku qaabilo hagoog hayska kay qarinne bal ka qayb galmaansada haddaad ka qatanaan weyday buuri markaasaan haddana anigu gebiye waxaan idhi inaan kula qastaba aadanow ma aha kayrkay isma qaban karo aniguna waan kaa qudh leedahay 4 qiblaba faankan aad nagu qaraaraysay quwad iyo waxaad xoog si daaqada ma keenaane qumbuladaadu waa been halkan baan qoori dhigayaaye qaar iyo 30 badow qowl ma siin kare niman qaala iyo qiila baran iima soo qume qadaflaxamubiin baan xadiis kaaga soo qaban goortaan ku qaabilay adaaba qiira qosolka reer shaxeed dhaafay iyo qayle iyo beene qasiidooyinkaygii haddaa qaarash loo diray haddii baarqab geeli qaasho oo waaye qarasiibmo qolqolkuu raxaabtaa markuu quusto dabadeede qaniinkiiyo gabaareedu waa qalin dareeyaane qaajeerka feedhaha ku yaal yaad ka qulubtaaye qalaanqal iyo diqow buu anfaco kaga qadeeyaaye qumisku ka cararaa markuu soo qananshabe adna qaabadaasaa tahay waanad garanayna qaraabo iyo nin been kula haya iyo qaradle mooyaane qosolka iyo mashxaradii macnaa laygu qaabilay khayraami dhuusiyo cabaadna ma aha qaynuune qoodhay iyo xeraday anigaa kaa qiyaaso canabaane dayib markay halkaa joogtay dowladdii hore ee soomaaliyeed ee u horreysay faswankii yuu u gebiyey wuxuu yidhi isticmaal markii mawdh la yidhi subax maraakiibta mabda'eennu wou wada dhammaa maalintii hore 100 nin baa martabadii qabsaday iyo macaankii intii kale musood laga rogay meeraysaa weli sidii baan makaar lagu gubtiyo milic u joogaaye sidii baan magti ula baxshaa muuminkii dile sidii baa sharcigu meedu yahay aan murwa lahayn sidii baan midho uga gubtaa madaxa toomooda sidii markaafiya u sitaa iyo maraykaane sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaya muqdishaba horteed waa dhaqnayn mahad ilaahay ee waxa webigu mooska u jabsaday waa macaaside kolba 10 malyuun baan maqlaa waa mucaawime bal intee muddo ee sugnaa maaxda imanaysa mililka iyo haddaan maasha saro malow miyay fuuli
ما معارض بان هذا حقا كما صوته بل محل معنيه إتري مينستر كان دور markaasaan haddana anigu xaggii dowladda maray waan gebiyey waxaan idhi wax dhaaxaan dukaan buuxiyey oo beegu jiifsaday waayana hor weyn baala dheer booq ku fafsaday waayana badow baan ahaa beelu yeedho ah waayana qur-aankaan bartoo buuni ku ahaay waayana askari baan u baxay iyo basaas gaal leh 100 iyo haddaan 10 ku jiray waa barkumataal leh intaasoo barwaaqa ah markii laysku wada biirsho bilqurahan xorriyadii arkay baa igala buureeyay boqor diinta kula haysta aad beegu garanayso oo aanad baqahayn askari inuu ku soo baasho aan beena waa hadalka cunay ku bishma cadaynin oo aadan boqol hoos u sin baaqina u reebin iyana waa bishaarada leelay ee bayaanka ah berberiya hargeysan cadaan baawar ku lahayn badda lagu cashuura markay bari yimaadaan boqorowday Soomaalida baadida ahayd buugay saxaan ma jiro baawar celiyaa nin kastoo isbida maanta waa bartamayaan caasimada la isugu bixiyo boostu waa xamare waa tay dadkan biid ogeyn baaq ku ciyeen waxa beeshan la isugu camiray say u badataay badana lagu caarido waxaan baadil ku ahayn balay ministerkiyo inamadan baawarka u dhiibtay alleele waxaan baahi qabay waa badbadiyeen baraarkiyo wankaygii dhashay baa boqol la siiyay waaniga cambaha baayacdiyo barayarow shaale waa kaa jirkaygu bogsaday baalidka ahaay boonkii la gooyo magtii baadilka ahayd baadidii wax qaadaa ma jiro bilaa hadday taale bidixdaa la sharayaa ninkii bowlad soo xadee nin baxnaana daran xaajari waa barqubataaye Soomaali biligeedu waa waxay la boodaaye haddii baarqabgeel lagu daro buur ku wada goojo bariya inanka raacaa haraad baahidii argi bishuu rimay bisheedii hanbuu barda qooyaaye inta beertu dhalayso ee midhaha kala bislaynayso badwigiyo ninkii walana ha iska buuqeene ballan waxaan ku marayaa hadday beri dhow sii joogto in bannaanadaa laga dhirgaa baaga iyo soore oo aan wax baahdaba jirin baaxsi mooyaane dayib markay halkaa maraysay buu aadan carablaydi ninkii lacag baa la siiyado waa la maamulo wakaa markaasuu yidhi dibjirka iyo afar erayb ahaa dibjirka iyo dagaagu ha baryeen dowladda nacay doqon iyo lin liitaa bishnaa loo dufninayaaye anigu dushaan shicibka weyn uga dacwoodaaye reerkaba dawaar baa ku filan oo diracdha leh deegaanta toomood ma cuno wiil dilaal tegaya dambeedada xishood iyo halaha diin abiidkooda reerkiibuu markaa dhex galay markaasaan haddana gay celiyey waxaan idhi adduunyadan hubka iyo xoogga iyo horumar doonaysa ninka yidhi halbaa ii dhashay ku hanta fooqaya lama hayno nimaan dowladnimo haari ku ahayn kana hawooday badow reedmiyo hoga tuskiisii halka cali afyaro oo kalaan haansa leedahay hafsar kuma itaalsado miskiin hawl ku saaqiday war soo duul maseed ku haligmeen hibadan lay dhiibay soo hor uga laacay badda lagu halaagmaayo hangool iyo ninood ari ku jira ama haraad waalay oo ay haliga mashiyeen ama halaabeenba halmaan kama duwana gabayadu ilo hor joogaaye hooyadii nin gabay aayadii hawl u qaban waaye hadduu hadafka Soomaaliyeed kula heshin waaye wuxuu noo horkacayaaba soo hid iyo gaal mahabaan dayib markay halkaa maraysay waxaa dhacday dowladdii aadan cadda inay dhacdo tii cabdirashiid qabsatay markaasuu gebiyey wuxuu yidhi mar haddii doctoorkii wacnaa dowladda hoggaanshay oo daaqilkii inay ciyaal diiradda u haysto doobkiiyo hablihii kala dal'adoo wada damaashaada gaariga dalbaarka hubanow dilindilqeen suuqa dukaamada busaaradda qabow dahabka miisaama dayaxow iftiin waadigii damiye nuurkii daydadii biyaha baaqati iyo webiyadow deexda doogada madoowey hawaas dacalka kuu saare dekadii jabuutay cashuur dalable kaa qaadnay daari cuqubadii dhismadu duma ilaa fooqa buu yidhi markaasaan haddana halkaa ka gabyado qoladii horaan jinacsinaya qoladan ma kala doonayn waxaan idhi doctor aadan carabow nin gabay daadiyaa tahay dadka maanta nool ruux ma jiro kugula doodaaye anuun baase kaa yara da'weyn daacadna u dhow ducada iyo karaamadu mar bay daahir noqotaay inkastaanan kugu diidahayn doodanaad marisay geelaba halda a kuu dhasho darar horaad fiican dacgurhkana taqaan baa jirtaan dib uga soo horrayna
afrikaba nin lagu diirsado doora laga waaye dambasoobe nimankii masare ugu danroonaaye waa taadi caadiya ceeb loo dalbanayaaye waxaa darashadoodii qarribay doolar reer yurubi dibitaati sana suuqa xamar deyn ka guranayey saakana wastiir soo dallacay haygu daadihinne inkastuu distoor soo bandhigo lagu damaashaado inkastoo wakhtigu doonayo dunida loo dhiibo dabagaabiya ayaama u tuntayba uga dacaam roone jeeray dan soomaaliyeed diirka ka caddaato jeeray waxuun kala degaan daakhil iyo khaarij jeeroo dalkaa maqan leelo ama war soo duulo dilaamadu nin raga waa ku ceeb daqar ka muuqdaaye war durbahayna maqashin kuwan adooka la hayaaban dayib markay halkaa maraysay waa tii tooraddu haddana qabsatay ee ay tooraddu qabsatay markaasaan itana yuu kaaga horrayne is-hortaag waxaan idhi carab yuusufow dunida waa la cirid baadhaaye ninna lama ciseeye xaqaa lagu carceeraaye caalankaa qura ee 10 sano lagu caneeqaaday cashaba dawladda haysatunbaa loo cayaartumiye caamada waxaa lagu yaqaan xiise caadiye nin canaan ka baqayaa rag iyo ceeb ma daaface cabsidaan rabbigay loo qastini mana caneeqaade cawaraba waa la sheegi jiray camaladeedii tan ise waa carjuuqiidha iyo jeelka ku ciqaabe in cantuugadii loo darsado lala caraabaye iyo inuu adduunku camirmo oo lagu caneeqaado cagtaa loo dhigaa jeer ay kala caddaadaane cirbaa da-aye jeer aan hubsado carun wuxuu reebo carabkayga kama sheegi karo caynkan baa wacane cashuur kordhay iyo tuug la xidhay waa cayaar weli waa beriga xisaab xilmada laysku waday cashuur kordhay iyo tuug la xidhay waa cayaar weli badow caano geel ka hirqadoo rayfalka cabbaystay oo xuduudka maantuu cagdhigo ceebka talinaya caasimadda weyn iyo shirkana caawa kula jooga cambuulaysto jeer lagu deldelo calanka hoostiisa cadaalad iyo qaynuun ilaa lagu carrowsiiyo jeer ciriqa gaajadu fadhido laga cameegtuugo caqiibiyo mudaahano ilaa ciidda lagu tuuro dhulka cadowgu qaybsaday ilaa qaar la soo celiyo 20 haddii lay xidhayo oo caawa lay dilayo ictiraafi maayo wanaag ima caad bixine markaana halkaasaan idhi waa kow mar waa kii sanatar la soo dhexgaloodo wuxuu yidhi isagoo aadan jinac siinaya oo dee yarba hore joogsanaya wuxuu yidhi kobun buu wax kaga soo baxaa bahal wax qaataaye buuhoodla weyniya shaxdi baabullaa degay bunduq iyo rasaas laguma radin belele maadhiine isagoo balaayo u dhashay budhar ku tuureene bal fin maayo aniga ogoo biirohoya bullaalaha fardaha maalintii bederka loo jeedlo birta jilicsan iyo yaarka waiskala boqolaaye nin badheedhay iyo waa muquus waxa barrijaaye wuxuu dunida baalka u gashaday booqintaan jirade annagaa bardoodami jirade iiga wada baydha markaa haddana aadan carabaa gabiyo wuxuu yidhi innakaa bardoodami jiray oo ma aha beentaaye waasaan bedelay saanadii baaltika ahaydi bamka dhacaya buuraha shuftada lagaga baadhaayo barjabka iyo intaan cumar cigaal soo bidhbidhanayo ka bariso booq bay hawl kugu badiyaanay buudi waayahay markaana waa gabiyo waxaan idhi master samatarow gabay adaa maamulkiisa lehe macallin qaariyaan kugu oga oo munaasib ahe kolumbu mushtaragaa ninkii meherada haystaaye markuu muusanow aadan carmarada kuu tuuray muddihii xoog le baad igu tahan marag u haystaaye madaxa haysanaaxina cadowgay muuday baa tahaye midabaysku waa taxasubkaa maculahaydene maxaabiistan aan soo xidhay hawma kaabirine markaa dalalkaasaanu isla maray waayahay gabayo kale way jireen oo beri wardheer aniga oo jooga yaa gabay yaa niman wardheer jooga madaxa u gebiy laalush bay naga qaateen oo barigii weeye calikushuey la diri jiray waxaan idhi nin hadduu intaan jiro ooga ka ciroobo adduunka iyo wakhtiga waa inuu kala ogaadaaye egshin baan ka qaadaa halkan eega dhowr beriye aalaafi buu ii yaqaan uumiyaa kale ima ogase inaan reer wardheer eedu joogahay ukun iyo halkaa cali khaliif lagu ikraamayo ee aayirkii qaadigaab kuu iljabinayo uurxumo ka bixi mayso iyo oohin weligeedi xasan cali sidii aabbihii aamin noqon waaye adduunkaa khariban buu arkayoo aarsaleeyahay 4 nimaan magac dhibay oo wada arsaa'iil ah
afmiishaar saneeyaashanaan cidi ogsoonayna ina koonfur weeyo dushuu naga ilaashaaye sida aar libaaxoo ku mamay aqala jees marba wuxuu ag joogaa ninkii ahanka hoos yaalla meesha aan ilaahba laga baqayn alamsa mooyaane meesha ninkaad aamintaa uubta kuu qodayo meeshaa sidii ari dammaan laysu iibinayo meesha arjiga aad qorto aanu kuu ansaxaynin aan aqalka awraajahaba amarku gaadhaynin addan sababa kaan uga kaco iimay uga dhoofo xaggan sheegan maayo addan sababa kaan uga kaco iimay uga dhoofo oo aan abeedsado dhulka amarka loo doonto waayo oon xumo inaan eegto weligay markaasaa aadan carab gabiye wuxuu yidhi sidii uu galbeedka uga helay gabadha iyagiibu sinaxa siinaya sidii uu galbeedka uga helay gabadha weynaatay godobtiisu nama qaabishoo nooma soo gale afartaa guracan uu ciddada kala gunuusaayo waa waxaan garnaydka ula dhacay gooshashkii hore waa geel gamboor sharafna waa uma garaabaane garhka iyo ceradaha arkina maaha geed jooga buuri markaasaan caytamadoo isaga iyo samatarba wa isku qaaday waxaani gabay waxaan bilaabaa marka ay geedihi muuqdaan golaha lagama tocsado waraan gaasabaha ahayn guddida ee xataa beri dambey gogoldhig weydaaye waa igu gafteen aadanow adiyo goodfiine weligiinba gacalkan idxiga waa gagabisaane ma qabiyaaladii guurtay baa idinka guuxaysa goonyaha miyaa iga marteen aniga oo gaara geel tire kibraase aar hadduu gudin ku tuurtuuro gabashadiya waa ku khatala geebjiirsiga aniguna gadaasoona goob caddaan dhigi waxaan gudo waxaan goosan karo garanba maysaan gumaystaha wadheer jooga baa idinla gaafoyn sida maqal garaaca baratay baa gudi ma raacdaan gadhowdaa u baydhaan markii geelu taabtabe gees walba waa u socotaan sidii gaadhisaageele gaala iyo islaan dumarku wau goosha tiriyaan marba waxay u guuxaan midkay guusha ku arkaan markii gaadhigii cali kurkula cadowgu soo gaadhay markii geesigii lagu qabsaday guuro iyo dhiidhi goortii wixii go-ay go-een gibana loo sheegtay gaagii ka soo hadhay amxaari gurada soo saaray waatay wadheer soo gasheen galab labaadii nin weliba abaalku gatuu gaar u leeyahay jeeraan guntaday xaajo waa kala gantoobnee cabdi gudiya waa tansan yaray gaadan la ahaay gidigiibaa daaroodku waa noo gurmanayeen markaana gabay caynkaasabaan tiri